بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan halkan bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeeynaya weerarkii dicifnimada ahaa ee argixisadu isku soo dayday xarunta danab inay ku sameysay Beledoogle ee fashilka ku dhamaaday. waxay saakayto 3 saac iyo bar isku day ku soo sameeyeen xarunta Beledoogle halkaas ay u soo adeegsadeen baabuur qaraxyo ah oo ilaa 4 gaaraysa iyo dad maleeshiyaan oo ay madaxa ka soo khaldeen dhamaantoodna lagu soo afjaray xarunta Beledoogle iyagoo aan wax khasaare ah iyo dhaawac iyo dhimasho midna soo gaarsiin ciidankayaguna si taxadir leh oo kalsooni leh ay uga hortageen iskagana difaaceen. waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada weynta nala soo wadaagtay information-kooda iyo xogahooda iyo inay soo aadan yihiin taasoo aanu diyaar u ahayn waqtiga iyada ay imaadeen markaasna ciidankeena u shaqeeyeen sidii ugu wanaagsaneed uguna macquulsanayd dhibaatana aysan naga soo gaarin. waxaa jira warbixino been ay qorayaan oo leeyahay waxaan soo gaaray meel xiblo iyo garoonka soo galay taasna waxaan inay cadeynay inaysan soo gaarin waxna aysan ka jirin aysan u soo gaarin 500 mitir xataa aysan soo gaarin garoonka iyo xerada ciidanka midna 4 gaarin ay lagu qarxiyay banaanka hore ciidankoodana meesha ku dhamaadeen. tiradooda gadaal ma kaga soo xaqiijinayna haddii Allah wada la ogolaado laakiin wax ka laabtay ma jiraan dhamaantood waxa iyaga hayeen ismaail hayn aad awood la kala hartaan marka waxay heli kareen meesha way la yimaadeen mana aysan ku guuleysan inay qorshahooda gaaraan rasmiga ah. maleeshiyaanka al-shabaab waxa weeyaan awood ma jirto ama maxaan ku raadayay caaqida rasmi ay ku dagaalayaan ma jiro. waxa uu wanaagsanaan lahayd inay isu soo dhiibaan la tarabiyeeyo wax la baro aqoon iyo nolol loo sameeyo ayna ka soo qayb galaan bulshada isu soo dhiibaysa oo iyaga ka soo galaysa.